waxaanan hadda joogaa Sharjah Book Fair oo ka soo qayb galay sababaan u yimid waxa kamid ah waxa riyada u tahay inaan turjumo oo af-Somali aan u turjumo buugga uu qoray madaxweyne ku-xigeenka dalka Imaaraadka ahna ra'iisul wasaaraha dalka Imaaraadka Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoub waan rajaynayaa runtii in dadka Soomaalidu ay af-Somali buugta ku helaan magacaygu waa Cabdisalaan Gaboobe waxaan turjumaanka buugga fanka urinta oo English lagu oran jiray Still Like an Artist oo qoray ninka la yiraahdo Austin Cleon maanta waxaan joognaa kalkii 44aad ee la qabanayo bandhiga buugaagta caalamiga ee Sharjah oo ay soo qaabiyaan Sharjah Book Authority oo xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeyo Imaaraadka iyo Somaliland aan hargeysa wax ku bartay jaamacadaha waxaan ka baxay Golis Abaarso labada jaamacadaha digriigii koowaad waa arrimaha bulshada digriigii labaad waa ganacsiga dalkan waxaan u yimid inaan ka qayb galo shirar kala duwan oo la xiriira bangiyada iyo investment iyo maalgashiga runtii waxaan shirar ka qayb galay magaalooyinka Sharjah tan aan joogno jaamacadda American University of Sharjah turkii labaad oo ka dhacay rugta ganacsiga ee Dubai isna ku saabsanaa sidii ganacsiga isku gudubkiisa iyo maaliyadda la isku xiri lahaa oo runtii arrimaha aadka loo taabanaya kamid ahay berbera iyo maalgashiga berbera iyo sida uu u saameynayo inuu gateway ama uu albaab u noqdo ganacsiga guud ahaan geeska Afrika ama wad maasantiin Emirates Somali